waxaanu ku sugannahay xaafadda Marsa ina walaasheena oo Soomaaliyeed baa inala taagan waxaan jeclaan lahaa insha Allah ta'ala balma koreen iskeen barto isu kan sheegto magaca walaal Xamdi Suldaan Nadiif Xamdi Suldaan Nadiif Xamdi alkeebaad ku dhalatay ama alkeebaad ka soo tahriibtay gobolka Togdheer Burco magaalada Burco waa si wanaagsan intay ku qaadatay safarkaagu inta Burco ilaa iyo inta soo gaadhaysay dalka kan maanta 2 bilood waxaad iga warantay Xamdi qofka bini'aadankii qof waliba sabab baa kan keentay ama sabab baa keentay inuu tahriibo adiga Xamdi ahaan duruufta tahriib kugu kaliftay hadaad xoogay dadka daawadayaasha aad uga faa'iideyn lahayd uga yar warramay wallahi wada wax dhibaato wadankayga ma keenin haysatay markaan ku soo baxa laakiin muxuu haayay waxaan islahaday future-kaaga bal heer nololood iyo maxay hayday waxbarasho iyo muxuu haayay mustaqbal fiican bal sii gaadh kabacdi saasan ku soo tagay inta mustaqbal iyo tacliin baa doonaysay tacliin sida nuglahay Soomaaliland jaamacado badan baa jira iskuulo badan baa jira tacliintaasi ma kugu filaan weyday inaad tacliin kale aad sii dalbato mise jaamacaddii wada dhamayso inaad tacliin yani ka sii sarreysa oo heer maaragtay master iyo PhD baad deedaysay maya wali horta waxay isku madayin run baa fiican wadankayga markaan joogay wax barto laakiin hamigu waxay noqotay dadkii wada tagay markaan arkay inaan soo dhaqaaqo hebel 2 bilood buu ku tagay hebel bil buu ku tagay marka la dhaw ma isdhablaadna adna gaad meesha la leeyahay dadku way tagayaan waa si wanaagsan walaal Xamdi waxaad iyar nooga warantaa arintii ku soo saartay taa weeyaan maxaad markaa timid Yurub ama dalkan Malta aad timid maxaad la kulantay arintii aad doonaysay ma heshay waxyaalihii ku sawirnaa ma la kulantay mise sawir ka duwan ka oo ka gadisan ayaad la kulantay maya sawir ka gadisan baan la kulmay markan Malta imid hada anigu waxaan ku haminayay marka Yurub tigtid baad raaxiyo adduun helaysaa laakiin waxay noqotay wadankayga hooyo markaan joogay waligii leema xidhin waxay noqotay markan saabada laga soo qabtay anagoo qaawin aan waxba aanan xidhnayn inaan la qabtay xabsina la geliyay muddo 3 bilood aan xabsiga ku xidhnayn anagoo ah maxay hayday 500 oo Soomaaliya oo dhowr dawladood istaba socday ahaa markiina la qabtay 3 bilood baan xabsiga ku jirnay gumeysi jirdil muxuu haayay dumarkii noo naxanin moobilada iyo nolol diidayeen ku hadalno oo nalaga aruurinay dadkayga aan la hadalno aduurafaad badan baa wallahi naga la kulmay imika waxa jira xitaa dad nala socdo oo rejecti la siiyo bilaa macno lagu siiyay iyo wad cabsateen oo xabsiga ku jira marka xitaa doonteeda waa la cilinayaa baa la yiri waa naloo maray mariya anagoo dad muslim ah baa hadana si waa la naloo xiray yiri boorkana la geeyay kabacdi waxa hadana dad baa ka hadlay baa Soomaalida meesha joogta mudaharaaday sidii baa dib loogu xiliyay xabsiga loo geliyay markii banaanka naloo soo saaray hadana maxay hayday wax nagu filan maanta nolol maalmeedkayga ku filan aan cunno nama siinin meel xiro qaxoontiina geeyeen 130 euro gumeysiina la siiyaa markana la siiyana maanta hadii aqalka hortiisa lagu arko nadaafada amba aad maxay hayday ka cajistid amba yara seexatid amba aqalka hortiisa gambar yar lagu arko waa ganaax maanta lacagta waa ka go'antay ma qaadinaysid bisha ka wallahi rafaad badan ban meeshan naga haystay dhibaato Yurub marka taadmoodaysa Yurub tima wadankayga hooyo la qaatay waa si wanaagsan Xamdi walaal waxaad iga warantaa socdaalkaagan kulli dawladda fara badan baad soo martay jab badan baad soo aragtay inaad walaalaha ku daawanaya ee adduunyada jacayladeeda jooga inaad bal xoogaa step by step uga waranto maxaadadihii ama arrimihii ugu muhiimsanaa ee ugu waaweynaa ilaa imka maskaxdaada iyo qalbigaaga aan ka baxayn inaad bal dadka uga waranto waana nooc min wacyigelin weeyaan taalaftirkeedu insha Allah wallahi dhibaatadii igu darnayd tii waxay ahayd igu qabsatay muxuu haayay saxaraha Ethiopia ka soo bilaabay Ethiopia ka soo baxay Soomaaliya Ethiopia soo maray Ethiopia waxba igala ma kulmin habeen madow baan anaga inta gaadhin ridan la soo saaran ku soo baxnay muxuu haayay hadana Suudaan baan nimid Suudaan markaan nimid qof kale wuxuu sitay walaa mariyo walaa kabo walaa waxa qof kale wuxuu xidhnaa oo laga siibay oo muxuu haayay Suudaantii baa dadkooda nooga dhacay dadna anaga mid leeyba qaawan ma iga rumaysanaysaa wallahi masar yar madaxa ku xidhnaa iyo dir bilaa koo garban xitaa ahaa markaan saxaraha soo galay sidaas maryahaygii loo dhacay waxaygii loo dhacay moobiladeeda anagu arkayna qasabna lagaga qaaday bacahaygina laga qaaday inamada jaakadankii mid loo jaakadka qurux badan laga siibtay rafaad iyo laad iyo jirdil ayaan ku soo galnay saxaraha markaan nimid waxaan islahayn meel fiican baa tagaysan meelba meel kasii dambaysa tagaysan ka wanaagsan saxari markaan soo galnay ayaa hadana maxay hayday qofkii maanta aan qofkiisa aan lacagta u soo diraynin amba marka qofka lacagtiisa aan horay ugu soo dhicin maanta ma leh maanta loos lacag iyo u soo dhacday buu dhahayaa buug buu soo qaadanaya waxaa dirinaya intii maanta lacagta ay u soo dhacday ayuu dhahayaa maanta intaas qadada cunaysa intiina kala qadam lihidiin biyana ma lihidiin bas dadana qofkii maanta lacagtiisa u soo dhacana bartaas ku qadaynayo ku faraxsan yahay oo waa goonidaas la istaajinaya qofkii maanta aan qofkiisa waxba u soo dirin amba qofka duruuftii wadankii waxba kaga maad imane aad muxuu yahay
tolkii dadka laga soo aruriyo lagu soo diro ay lacagtaadii dhammaan weydana cunto ma lihid halkaasaa biyo la-aan iyo haraad loogu dhimanayaa dabeetana wiil waxay la socday annaga aan magaca wadaagno oon imaadeernahay markaan saxaraha soo galnay reerkoodii baa wax yar adigu waxba aan haysan ka yaryaro dhayalsaday dabeetana wuxuu sameeyey wuxuu yidhi waan tegaya anigu meeshan ma joogi karaya maxaa heday lug baan ku baxaya mid kale is soo raaceen lugti bay ku soo baxeen in yar markii si socdeen baa loo sheegay ninkii magafaha gaadhigu kaxaystay uu soo qaaday maxaa ku kalifay dadkayga waxba ma haystaan anna waxba ma haystay buu yidhi inaa labadii wiil wuxuu sameeyey ninkii muxuu ahaa magafaha labada lugood intuu ka xidhay calaacalaha ayuu kor sidaa laba nin garbaha ugu saaray iminka labadii ninoo garbaha loo saaray waa dhinteen saxaraha kusoo dhinteen labadaa garab buu labadii nin u saaray 5 nin oo nin waliba quwadiis ilaahay og yahay ayaa soo qaatay tuumbooyinka biyaha maxaa yeelay lagu shubto foostooyinka lagaga nuugo saanta lugooda kor loogu taagaa saa loola dhacay calaalahooda lagala dhacay jirkaa lagala dhacay annagoo dhan buu noo yeedhay wuxuu yidhi saasay nii wadamaysan rag iyo dumar qofkii aan lacagtiisa saa usoo dhiibin dabeetana labadii nin sidii markii lagu qaracay xadhigu ka fara carara buu dhahaa sidii neefka geelax usha ayuu dabada ugula dhacaya yaaca lagu yibaa mililay qofka muxuu cararin annagoo dhan waan oognay waan isku darnay si kasta samaynay ashitaaba ma hadli kartaan daawadan haddana uu soo qabtaa markuu ashahaato qofku laa ilaaha illallah maxamed rasuulullah cami markuu dhaho wuu ka sii darayaa wuxuu daayadaay wuu ka sii darayaa labadii wiil mid kama warrami karaya wallahi meel ugu dambeeyay laakiin mid xanuunkii iyo faadhihii iyo jugtu ula dhacay ayuu u dhintay hadda sabaha markaan mid buu dhintay muxuu haayeen waxa kale jira iyagana 3 wiil oo kale ayaguna labadii markaa hayay iyo mid kale haraad iyo gaajo ayaa loo madha haraad markii aan ugu yeedhnaan dhahna kaale cami qofkan haraad buu dhimanaya suun buu dabada noo qabanaya anagoo dumara lacag baynamada ka soo aruurinay biyahan uga iibino lacagta markaan soo aruurinay waan u geynaa caagad yaro oo wadankeena kunka shilin laga siiyo moobilka dhar leeg ayuu $100 ka siinaya caagadi marka ma mid baan ugu shubnaa mise labaan ugu shubnaa dumarkii oo dhan way wada suxsuuxeen raggii oo dhan way madheen marka muxuu haayeen waxa jirtay xitaa wallahi inan Soomaaliyeed oo iyaduna la socotay haraad gabadh buuran bay ahayd gabadh carabta ka timid bay ahayd saxaraha iyo kuleelka xamili kareenin gabadhii markay maxay heeday haraad iyadoo adkaysan weyday oo tagto waxay toolaalow haraad bay haya wax si afki taqaantiyadu markaa moogtay dadna uu maagay maya kuma siinayo gabadhii waxay noqotay inay meel iska fadhiisato iska ooydo annagana buurihii baan iska kala galnay qof walba naftiisu meel bacada weeyaan oo kulul foostooyinka biyaha ayaa soo qarxaya wax kale iska daayo bas meel buu nageeyay meeshii anaga ku jirnaa gabadhii ku soo noqonay bacadkii haddana jiifta wuxuu soo qaatay tuumbo kacbu yiri cuntadan ma cuni karaya bay afkay taqaanti qaar ka dambe gabadhu meed bay ka ahayd oo u shakila dhacay markaa ushii buu la dhacay iyaduna la jirkaas soo meed naftu ka soo baxdo ma wadanqanayaba markii dambe ayuu yiri soo qabto soo qaaday marka soo qaadu saan noogu keenay buurtii ay gabadhi nafti ka baxday way dhimatay Soomaaliland bay markaas saxari waxa naga dhintay 4 wiil iyo inantaas naga dhintay markaan arkay in dadkii oo dhan wada maranayaan oo dumarku wada suuxayaan oo qofna walaalka haduu kula soo dhamaanta koobka yar biyaha uu kaaga yara dambe kuma siinayo bartaan buu sii gashanaya wuxuu leeyahay ma bixinayo ana nafteeda ku eegay 3 dumaran isku raacnay meel buur hoosteedan galnay kulul hafibaasa ku leefaya ha oohin wax kasta rafaad kasta soo maray waxay ahayd wallahi billahi been sheegi ma in yaqaan Allah ku dhaartay gabadhi saxaraha kaadideeda ku cabtay ayaan anigu ahaa aad ku cabtay saxaraha dhexdeeda kaadideedan ku cabtay haraad dartii kaadidu soo yaagtay casaan dhiig baad moodaa waan kaajay inaan baan u yeedhay markii inta Talyaaniga ka xirataan maqlay waxaan ku walaalay waxaad sameeysaa hadaad caawin kartid ma kici karaya kaadida ii qabooji inantiiba kaadida ii qaboojisay kaadida bay siisay kaadida markaan soo cabay dhuuntii way dilaacda ma tag ayaan keenay ma tag ma imanayo biyo kulul bay iga soo noqday hadana bas ma kafii baan ku soo noqonay inanta baa kaadi cabtay baa leeyahay bartii buu igu sii duliyay sidaad u cabtaa kaadadaada maxaad igu imoodo markaan ku mid sadigii eryanay dilayay maaha nadaanti marka rafaad kasta waan soo maray wallahi walaalkayo hadana waxaan soo baxnay lacagteedii baa la bixiyay inankii marka lacagta bixiyaan kulaha maxban isku ahayn oo la iga reebay subhanallah ayna loo soo qaaday iyo buurihii intaan sabab ka bixin ya aasay dadkii dhintay marka aan ku wada aan gaadhiga aan soo raacnay 40 qof aana lagu soo qaaday 40 qof markii lagu soo qaaday saxarihi aan maraynay meeshii muxuu ahaaday buuri bacadkii ayaa waxa sameeyay raggii oo daalan buu dhahay oo haraad iyo gaajo u madhay oo 3 bilood 4 bilood nin walba saxaraha iyo buurta u fadhiyay ka dega gaadhiga riixa gaadhiga markuu saxaraha galo iyagoo bilaa kaba ciid iyo kululeysa isku la warogaysa raggii markii gaadhigii riixan haraad u madhan gaadhigu socon waayo uu degaa wuxuu la baxaa bir oo muxuu haayay sida xadhigo kala birtaas raggii la dhacaya qaar ba halkan imika ila jooga jirkaas imika oo xabsiga qaar ku jiraan jirkaas nabaradu la dhacay ku yaala ushaas la dhacaya qofkii soco riix gaadhiga tatna mid baa dhacay kii markuu dhacay buu yiri iskaga tagay
ku soo noqday inankii bartii jiifa ayuu yiri gaadhigan jirsinayaba gaadhigu ku soo eriyay dadna saas uga yara gurgurtay kama ku gurtu u shubu qaatay uu la dhacay ka awir gaadhiga hor ma kori karayo inamadii Soomaalida anaga ku qaylina waan ooynay rag dumar waan degnaa ninka waan soo qaadano gaadhiga waan soo saarna in yar markuu gaadhiga noo socdo ninka dhinta wala nin jub iyo muxuu hayaa haraad isku darsamay weeyaan okay markuu ninkii dhintay ayaa maxay ahayd waxaan sameeyay diric shiidaan inaan uga qaadnay diric shiidka ayaanu xidhnaa diric shiidka u xidhnay xabaal ma jirto biyo lagu meedhiyo ma jirto qof walba intuu xidhan yahay baa lagu aasay ciidii baa saa lagu farfaara rag waxay wada noqdeen rag maanta tabcaana aan waxba aasi kareenin marka gaadhiga isku mar 3 saacad barkood nin baa dhimanayay saacad barkeedba nin baa dhimanayay 19 qof afar baabuur isla socotaan 19 qof aan naga dhintay calaashan ragii markay waxba aasi kari waayeen aniga inaan kala imkiyadana educationka ku jirta xabsiga imkuulay aan ka soo bixin ayaa maxay haday meeshka dhaqdhaqaaqaynay runtii waxay sameeyay dhagaxaanta meedka dhaqada laga saarayo ay soo guris anigana ragii marna waan ka nasinayay waan la qodayay marna meedkii waan la qaadayay labadiina baa aasay marka labadeed wax dumar ah labadeedii iyo labadii nin oo iyagu gaadhiga wato iska raaxaysanayay iyo inaan kala marka isaga meesha ugu adadka rag aan bilwada lahayn ahaa wasagu raggan ka yara adkaab ahaa oo imika isaguna xargan uu joogaa shanteeda qof aasnay markan ma arkin waligeey inta adduunka saarna hota gabadh meed wax ka aasta laakiin waxay noqotay qofkii ugu horeysay oo kaadideedina saxaraha ku cabta meedkiina wax ka aasta waan soo qaaday saa markan meedku la soo qaadan saa ilka u dhignay il male wax yar gacantiisa soo muuqatan xitaa ka tagna ragga qaar gacmahooda soo muuqanaya ayaan iska soo tagnay saas markan meedku soo dhignay dad inankii ay yiri walaal ordo iska fadhiso ma fadhisanay baan quraan walaal cado adag haya wayna la aasay waan la aasay shanteedii shaqaynaysay intii kale meed waa iska meediyay shanteedii shaqaynaysay wiil hooyo biyo caba ila shantiina baa shaqaynaysay bas caagadeed bay u dhintay waxaan ku aniga igu shubmay cabi hadhow cabi waan ka soo qaatay marka marba qofkii naftu ay sii qabato ayaan ugu shubay hanfigii kulula qofna mariyo ma hanfigii kululaan marinay ragii oo dhan waa wada marxadeen waxay noqotay meedkii markay ragii meedkii isku farabateen dadkii dhintay dadkii noolaa dadkii dhintay baa badnaaday oo meedkii gaadhiga isku farabadanay inaan gaadhigi ku qaylino annaga noo joogo meedka anaga aasayna hadaan noo aasaynin meedkii calaashan wuxuu noqday intii noolayd inay meedkii naf ka daydo ay ku fadhiistaan ragii aysaa ku fadhiistaan war meedka ka kaca war muna saaxiibka hebel shalay aad isla socoteen saxaraha muu ahayn ka kaca meedka markaad tiraahid oo inaad yaraanba anay maanta anay naftiigu jirtay idaabu taagay maanta anay naftiigu jirtay idaa dadna markii dambe waxaan soo gaarnay meel yar adigu oo baabuur kala nagaga hor timid dadna inanba baabuur kala soo gaaray baabuurkii inaan noo barday afka taqaantay waxa walaalaha meesha ku dhibaataysan meedadna waan sidanaa meedka hana loo aaso gaadhigiiba ninkii la hadlay rag intii noolaa buu yiri soo kara inteeda dumar iyo meedkii baa lagaga tagay gaadhigii kala rag lagu qaaday annagana gaadhigii meel baana la keenay dhirtii markiina la keenay ayaa meedkii liidho inili aasaya sidii waa cunto yarna loogu kariyay meedkiina loo aasa marka wallahi rafaadkii ugu weynaan soo maray taas ahayd sabahan soo gaadnay sabahan markii aan nimid ayaa la yiri muxuu haye magafaan qabsaday magafi markuu qabsado hadana reerka maxaa ka baxay lacag inta leeg hadana mid kala laga rabaa baalay dumarka markay ayna lacagta reerkooda uuna u soo dirin wuxuu sameeyaa ganaax banaankaas oo kale ayaan seexan jiray meesha aan taaganahay kala cidlo dhaxan oo rooba ay u dhigi jiray barta seexda araguna aqal baa ugu qufulnaa bas wuxuu sameyn jiray ninka ragga markuu lacag reerkooda u soo diri waayo amba uu ka raajiyo maryaha intuu ka siibo oo sidoo hooyadu ku dhashay ka dhigo ayuu wuxuu qaadan jiray birta markuu qaato ninka quwadda inta la agtahay weeyaan ayuu ninka qaraaci jiray ninkii jirkiisa meel far la saara lahayd oo wada dhiiga ayaa ka soo bixi jiray aqalka dumarkana wuxuu ku cadaabi jiray lacagta maanta lama soo diraa maanta cunto milidiin qolbu ku xidhi jiray faanti qolka markuu ku xidho barta ku haysanaya qofkii uu dhahay bartaasad ku jiraysa telefoonka iyo reerkayga hal maran daqiiqad ku sinaya hadii laga qabteedan laga qaban lacagtina galabta ayaan ka doonaya ayuu taagan yahay marka waxa weeye anu dadkayga Soomaaliyeed wallahi waxaad xoogay yara taabataa Liibiya ka soo bixitaankaagii markabkaad soo raacday okay marka hota aan sabha ka soo baxay sabha rafaad kastaan ku soo maro ragga Soomaaliyeed waxa la sameeyay jaajuurka qalada lagu dhista ma aragta wallahi kaasaad ragga madax laga gudfanay korontadu ka qabanayay xiniyaha lacagti dalbo dumarka laakiin halka yara naxariista dumarka Liibiya ugu soo yara galno dumarka wala uu hanjabayo laakiin gacan muu saaray faanti dadna wuxuu sameeyay Liibiya uu soo daaray aba baabuur buu soo saaray 20 wiil iyo 20 dumar uu soo saaray Liibiya loo soo diray Liibiya markaan habeen u soo soconay subaxii dambe xilligan oo kale oo barqad tahay ayaan soo galay meel buura gaadhigii nimada waday meel gooniyo ku rogay gaadhigayga hablahana meel gooniyana la keenay afartankayga qof waana la kala qariyay saddex nin bay haayeen qorigu soo qaatay hablihii buu yimid halka fadhiistay wuxuu fadhiisay waan fadhiisanay habluhu marba mid istaag way istaagtaa saa u sii jeeso saa soo wareejiyaa inantii fadhiiso mid kale wadana kiciya
saas u wareejiyaa fadhisaadna waan isku wada darnay waan wada oyna maxay ku taraysaa wuxuu baadho inaan markaa maryo qurux badan xidhnayd oo inaan iska meel dhaxaadaa buu yidhi kac ina mari inaantii baatay xaggaan aadaa ina mari buu yidhi halkaa ina mari qorigiibu saa ugu qabsada meel yaroo barkada oo yaro gaaban ayuu la tegey inaantii hadda annagu meesha laabkaaba loo galay laakiin wuxuu ku sameeyey ilaahay baa og inantii baa soo noqotay oo oysa waxaad samaysaan mid kalena wuu doonayaaye ilaahay baryo tukada inantii isla markiiba intaa markay tiri bay salaad gasha annagoo dhan baa oynay inan nala socotay markeedana xabsiga imika rajagti baa la siiyey wax diidma la dhaho oo xabsiga ku jirta oyday inantii markay oyday inantii markay oyday ay tiri muxuu haayeen aan caami sidan ka daa hablaha maxaa samaynsan uu noo yimid mid kale yimid kii kale qorigii ka qaaday wuxuu maxaa dumarka uga nixinsa waxana wax isku ogyiin waa barkadaha waxa hablaha Soomaaliyeed baa loo sameystaa oo lagu kufsadaa bas maxaa hablaha kartaa wiilkiiba naga kixiyay qorigii xabadii noogu hanjibiyay 3 xabadood badusheeda ka riday 3 xabadood ku dusheeda ka riday inteedii isku oynay iyo mid soo qaat wuxuu waxaad samaysaan naagta ugu qurux badan halayso ay soo baxdo mid kale yiri maxaan ku qabanaa ma kunir laatan agood baahan maxaan ku anagoo dhan baa isku darnay inan baa markaa ayadana makeeyada xabsiga ku jirta san kugu sheegay inanta iyo ilaahay baa nabadbaadiyay inantiiba waxa ayagoon saan dhaxdo martay tii aniga dhalay aniga haysta haddaba adiguna mari buu yiri ma yaba taana kuma rabo tooradii buu barta ka saar waxa tii aniga markay dishid baad u tigaysaa caarka martan bay hadda mid ka xastan mid labaadna ka xaysanamaysaan anagoo dhan baa isku darnay inamadii baan u yeedna inamada waxaan ku sheeka xun baan haysatee waana la xishoonay inaad tahay qofkii heblaayo shay la yaqaano naadeerta waa bartan nin ku qabsaday waan qarnaa waxaan ku kaalay walaal nacaawiya inamadii markay noo yimaadeen buu yimaadeen inamadii bur la dhaco noqday libertina ku noqdo caashan rag iyo dumarkii ayaa la kala ilaalinaya marka wallahi rafaad badan baan soo mara dhibaato badan oo soo mara qofka kaadida soo cabtaanay qofka mayd soo aastay baan hay maanta oo rag wax ka soo aastay baan dadkayga soo mara maxaad bal ku tali lahayd walaalaha ku dhageysanaya TV-ga qaranka iyo TV-da kale ka dhageysanaya wallahi walaalkay waxaan ugu la talin lahaa anigu ra'yigayga sidaan ahay san marka hore hamigan ku soo bixiyo hamigan imika taaganay iyo rafaadkan soo maray isma laho anu dadkayga Soomaaliyeed waxaan ku talinayaa meel kasta ay joogaan inay wadankoodii iyo dalkoodii iyo diintooda ilaashadaan oo ay anfacaan waayo dhibaato kasta inantii la kufsanayo inankii la dilayo rafaad meesha soo martay waalidkii naxadin la markasta la yeeshatay barsa la igu haystaan waa la dilaya waana waxaan kula talinayaa dadka walaalada inay wadankooda iimaansadaan iska joogaan xoolaynta kaaga baxay safarkaagan xoolo waxay iga baxay lacag $7,000 gaadha $7,000 maanta waqtigu dib u soo noqdo ma bixin lahayd mise waxaad ku qabsan lahayd wadankaaga dhexdiisa ma wadankayga dhexdiisa ku qabsan lahaa wax ma soo bixin niyad cidna kulama talinayo qof walaalada ayaa maanta oo wadankan amba ila joogan la yaan iskaga baxno hadda haddana wax naga kaxiyo iska tigilaa maxaad ku oranaysaa dadka mas'uuliyiinta ee midna wadanka haysta ama madaxda wadanka xildhibaan ha noqdaan guurti ha noqoto madaxtooye ha noqoto maxaad iyaga la talinaysaa tala siinaysaa marka hadma baa dhibaatada tan soo aragtay wallahi dhibaato badan waan soo aragnay dadka walaalada ama madaxweynaha noqotaan baa saas sheegtay wasiiriyo iyo muxuu haayay wax kastaba ha noqoto waxaan kula talinayaa dadka inay dadkooda ogaadaan oo arursadaan oo dadkooda wax u qabtaan oo dadkooda imka qurbaha jooga inay meeshaba ka kaxeeyaan wax u qabtaan say falagooda wadankooda ugu celin lahaayeen wax shaqo u siin lahaayeen waxbarasho u siin lahaayeen wax ula soo maxay ula qabsan lahaayeen ayaan anigu kula talinayaa waa xamdi ugu dambaystii iyo gabagabadii yaa jeceshaa inaad ka salaanto adigoo jaaniska fursadda ka faa'iideysanaya waxaan ummadda Soomaaliyeed meel ay joogto iyo waxa muslimiinta oo dhan wada salaamaya meel ay joogtaba halkan waxaan ka salaamayaa aabahay Suldaanad Ibsayd oo jooga Hargeysa hooyaday Faadimo Aadan dhammaan ilmadeeda iyo hablahayaga iyo wixii codkayga iyo magacayga garanaya meel kasta ay joogaanba aad baan u salaamayaa aad baad u mahadsantahay walaal baan ku salaamayna